walaal waxaan ku leeyahay kuma amraya waxaan ka dalbayaa sin xariisa shariidka kooban oo aayadaha quraanka iyo xadiiska iyo qisaska islaamiga ku duuban yihiin cid aad gaarsiin karto dhan gaarsii inta kuugu jirto oo dhan la sheer garay fariintani maanta waxay tahay inaan ku soo gudbinayno aan ku leenahay ogow oo xusuusnow inaad adoon ilaahay tahay inaadan iloobin wixii lagu abuuray inaadan iloobin maqsadka laga leeyahay inaadan iloobin cidda kaliya wax ku tari karta abaar iyo mushkilad hadaad dareemayso hadaad awlaad la'aan dareemayso hadaad caafimaad la'aan dareemayso hadaad maxaan ku dhahdaayay masiibo iyo dulmi cid ka haysta jiro ilaahay inaad xasuusnatoodan iloobin weeye fariintu saddex misaal baan ku siinaya qisada koobaad waxa lagu tilmaamaa ibnu abi dunya kitaabu leeyahay inuu ku wariyay isagoo zuhdiga ka waramay iyo alla bariga iyo cibaadada qofka muslimka ah waxa kale oo wariyay Hasan al-Basri isagoo Anas ibn Malik ka wariyay nin ansaariya inuu ahaa nin ganacsada lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ninkaasi inuu maalin maalmaha kamida isagoo safar doonaya soo maray tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka kamida oo dhinaca Shaam inay ahayd lagu tilmaamay ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidlaya oo uu kaashado oo uu weheshado oo dariiqa marisa waxa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo ninkiiba farda iyo gaadiid ka kireeyay ninkaas oo tuugaha asalkiisa yaa markii wadadii dhexda la sii marayay wuxuu yiri wadadan inagu leex waxa uu yiri war wadadan haynagu leexina tana raadkiya dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari wuxuu yiri may anigu tana qaano tana dhow oo tana toobiya wadadii ayuu ku hormaray ninkii dabeedna markii hawd halkaas ah yakayniya dhul qariiba la dhex maray iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafa dad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaagaba banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadayda iyo ehelkayga aanu noqdo hooyadayba kaligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay wuxuu ku yiri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna sakama maqal waxa uu yiri waxaan ku yiri war afar rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso markaas wuxuu yiri waxa tukataa intaad rabto waxa uu yiri waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo aayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay aayada quraankii waxay amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah aayada qalbigayga ku soo noqonaysay ducaduna waxay ahayd yaa waduud ya dhul arshil majid ya fa'alu lima yurid ducooyinkaas ayuu akhriyay aghithni ya mughith wa aghithni buku al-ali ducada markuu akhriyay ya rakacadihiisa ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isagiina salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaas uu ninkii dilay waa uu weydiiyay wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibu al-mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudiriinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiya inay ilaahay u noqdaan kuwaas anigu iska rabtaagaa buuri dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqithni markaad lahayd albaabka koobaad ee samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaaceedii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiibon koogu imid qisada labaad waxay tahay wuxuu ka sheekeeyay adaaciya al-islaami dr Aid al-Qarani yaa wuxuu ka sheekeeyay fi qisasihi wa fi muhadarati mid kamida in a'raabihi oo safar galay isagoo safaradiisii ku jira inuu la kulmay awr qooqan oo haa'ijaho jamalaho cilla jooga ah oo dadlayso khatara awrkii inuu ninkii caydsaday jabalku hadii ama awrku ku caydsadana ka bixi karimays awrkii baa wuxuu yiri waan la warwareegay markuu iqaban gaadhaba waanu jaray dabeedna waxaan arkay mar dambe anoo quustay ayaan arkay god afka soo kala haya godkii ayaan dib u galay anoo xagga wajiga dhulka u soo jeediyay banaanka oo banaanka soo xigsiyo islaha bal afkoon ha kugu cuno intuu lugaha kula dhici lahaa oo ku jajabin lahaa oo silcsan ka tagi lahaa dabeedna waxa uu yiri in yar hadaan godkii ku jirin qalbigayga waxa uu ku xasiloona
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يا أمن يجيب المضطر يا أمن يجيب المضطر انت وحنا هين وان إلو بيبوري ولا ليال مرك انت صدو حصوصتي محي أنفعضي تربديبا waxaan dareemay buu culays xagga dambe iga saaran iyo shanqar aad u xoog badan waxaan dib fiiriyay mas'aad u weyn oo godka ka soo baxayaan arkay qarqarkayga ku soo beegan markaasaan idhi buu subhanallah natiijada amman yujibu almudarra ma xaggan hadaad u baxdana mas xaggan hadaad u baxdana awrmiya markaasaan wuxuu yiri anigoo aad u naxsan anigoo oo saan weyn leega jiiday ayaan godkii iska sii fadhiyay maskiiba qarqarkayga soo maray awrkiiba sanka qabsaday awrkiiya sankan iyo maskiiba isqabsado isla tuntay awrkiina maskii waa dilay maskiina awrkii wuu dilay labadoodii oo meedan 2 daqiiqo dhexdood soo baxay buuri oo naayir iska soo baxay anoo saalim ghanima ilaahay igu gargaaray ama yujibu almudarra idha daa misaal kastaxada u dambeeya waxa uu yahay inuu ka sheekeeyay Muhammad Hassan wuxuu yiri raxalaadkayga mid kamid ayaan maka tagay muxaadaraan jeedinayay nin baa farta taagay oo igu yiri Muhammad Hassanow ilaah baan kugu dhaariyay waxa alla ila kulmiyay nicmada alla isiiyay aan ka warramo intaadan hadlin caawa waxaan idhi buuri tafadal ya sheekh waxa uu yiri ninkii uu hadlay wuxuu yiri ahad tujaar fi khaliij baanahay maal badan baan leeyahay saradaan baa igu dhacay shalal baa igu dhacay oo jirkayga qayb badan bakhtiday waxa uu yiri noloshaydii baan ka quustay muqcid baan iska ahaayo sariirtaasaan iska jiifay maalin maalmaha kamidaba xajka oo aad loo xajiyayo yaan idhi buuri tollaay maalintan meel ka haystay oon taladiya tabarta hayay maanta talan hayaa tabar baanan hayn shalayna tabar baan hayay talamaanan hayn maalkayga hadaan ka xajii lahaa maanta aan sidan u dhintay wuxuu yiri murugadani ima hayseen markaasaan wiilashayda intaan u yeeray ku yiri waryaada igeeya xajka igeeya baan idhi buuri anigoo doonaya rabbiga beedka iska leh inaan awoodiisa badan ku bariyo inaan qurbi iyo dhawaansho intaan muujiyo tabartayda intaan tijaabiyo inaan ilaahay bariyo albaab kale oo ii furan inuuna jirin wad garanaysaan taajir maal haysta xuri jarmalka gee ingiriiska gee maraykanka gee faransiiska u dhig talyaaniga u dhig meel walba waa la igala soo qustay buu caalamka wixii dhakhtar ahaa oo dhan waan soo maray waxaan xasuustay kaliya ilaahay baabkiisu inuu ii furan yahay waxaan idhi buu war hal igeeyo saaba lagu geyn wariqaado sariirtayda ii dhiga gaarigayga khaaska ah oo igu kaxeeya baan idhi buu wal ikaxeeyayo xaramka la igeeyayo kacbada markaan gaaray yaa la igu warwareejiyay oo la igu dawaafsiyay gaari gacan iyo waxa curyaanka loogu tala galay markaasaan idhi buu wariga dajiya markii la iga dhigay baan intaan siqay kacbada qabsaday markaasaan qaylo intay afkaygu karayay ku shubtay buu ilaan codkii qayladan qaylinayay codkii xidhmay buu waxaan idhi buu rabbigi beedkan lahaayo rabbigi abraha ka qabtayo rabbigi muhammad u furayo rabbigi sidan yeelayo rabbigi muuse badbaadiyayo rabbigi fircoon halaagayo rabbigi sidan yeelayo anigana maanta waan ku garan laa shalay markaan caafimaad ka qabay maanta on tabar yar ahay baan ku gartay naxariistaada shay walba ka balaadha ilaahu ii naxariiso waxaan idhi buuri lugahaygi ii soo celi ilaahayow gurigaaga markaan ka baxo ama luga kuway aan kaga baxo ama qabriga iga bixiyo nafta iga qaad baan idhi buuri anoo daalay intaan lulmooday baan dhinac u yar dhacay oo wiilashaydii i qaadeenoo meel yar seexiyeenoo markaan hurdadii ku jiray baa waxaan ku manaamay buu yidhi waidaa bimunaadin yunaadi iyadoo laygu leeyahay warwaad caafimaadee oradkac anoon isxusuusaninun baan farxaddii booday buuri booditaankaan booday wallahi alcadiim waaban istaagi karaa oo lugaha aan ku taagnahay dadkii la joogay waa kuwana i weydii buuri Muhammad Hassanow ilaahay marka ducada qofka mu'minka ah wuxuu kaga faydaa waxyaabo aanu tawaquci karin abaar iyo roob da' la sugayay iyo waxyaabo ka weyn baa qofku markay cidhiiri la gashay ilaahay kaga faydaa subxaanahu wa ta'aala